shirkadda Dahabshiil Group ayaa magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay madal ay ku wareejinayeen agabka ciyaaraha oo dhammaystiran kuwaas oo loogu talagalay dhammaan ciyaaryahanada kala duwan ee ka kala socda gobolada Soomaaliland kuwaas oo ka qayb geli doona ciyaaraha gobolada oo 18 bishan oo ku beegan maalinta Arbacada ee bari ka bilaami doona garoonka Hargeysa Stadium. madashaas ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, kaasimayaasha wasaaradaha ciyaaraha madaxtooyada, agaasimaha wasaaradda xiriirka golayaasha dastuurka, wasiir ku-xigeenka warfaafinta iyo sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin kala duwan. xildhibaano, mas'uuliyiin ka socota axsaabta mucaaradka, muxaafidka, siyaasiyiin, mas'uuliyiin ka socota shirkadda Dahabshiil Group, madax dhaqameed, aqoon-yahano iyo marti sharaf aad u tiro badan. ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan shirkadda Dahabshiil Group oo sheegay ka shirkad ahaan inay mar walba garab taagan yihiin bulshada sidii ay u caawin lahaayeen. sharaf bay noo tahay in aanu maxay ahayd sidii caadada ahayd sanadkana mar kale uga qayb qaadano dhammaan gobolada aanu siino agabkii ay ku ciyaari lahaayeen inta koob u socdo. sidoo kale shirkadda Somtel waxay ballan qaaday oo wasaaradda warfaafinta u ballan qaaday in inta ciyaaruhu socdaan aanu live ku sii dayn doono maxay ahayd koobka 2011 bay ahayd markii ugu horreeyay ee geyga Soomaalida live ciyaar looga daawado. markaana ilaahay mahadii Somtel ayaa suura gelisay barnaamijka Dahabshiil waxa farxad noo ah inaan mar walba qayb ka noqono arrimaha bulshada iyo ka qayb qaadashada waxyaabaha bulshada wuxuu tarayaa dhalinyarada waxbarashada iyo caafimaadka. munaasabaddan maanta aynu joogno ujeedadu waxa weeyaan 10 kooxood oo kamid ah gobolada Soomaaliland aanu ku wareejino agabkii ay ku ciyaari lahaayeen insha Allah. intaas kadib halkaas waxaa ka hadlay xubno ka tirsan marti sharaftii ka soo qayb gashay oo si weyn u ammaanay shirkadaha Dahabshiil Group iyo kaalinta ay kaga jiraan dalalka. waxayna sharafta ugu muhiimsan saddexaad leh ee Dahabshiil Group sababtay inaynu halkan isugu nimaadno sanad walbana ka muuqata ciyaaraha maanta halkan ku soo bandhigaysa waxyaabo fara badan oo isboortigu aad ay u jecel yihiin qalabkii oo dhan intaas oo gobol halkan maxaan ku dhahdaan uu tala gashay inay ku wareejiso aad iyo aad baan iyadana u hambalyeynaya. waxaan hambalyeynayaa oo abaalkooda runtii la gudi karin oo weyn ah oo la ganacsatada karanaha ku dayato shirkadda Dahabshiil Group waxa qaateen door weyn waxaanay qaateen doorkii ay lahayd wasaaradda iyo xukuumaddu. intaas kadib halkaas waxaa ka hadlay agaasimaha wasaaradda ciyaaraha, agaasimaha madaxtooyada iyo sidoo kale wasiirada hawlaha guud iyo deegaanka. wasaaradda ciyaaraha Dahabshiil Group abaal weyn bay u haysaa oo ka weyn kan ay maalgeliyeen runtii sportska runtii si dad badan la wada socdaan garoonka Hargeysa Stadium ayaa muddo hore dumay oo uu soo gaaray dhaawac weyn oo roob u geystay lacag dhowr boqol oo kun oo dollar ah ayay garoonka kaliya geliyeen oo dib ugu dhiseen oo ay ku soo celiyeen bilicdiisa iyo muuqaalkiisa. waxay kaloo dhisaan garoomo kale oo kamid ah kuwa gobolada. waxay mar walba la garab taagan yihiin wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha inay internet caqab la'aan runtii siiyaan. Dahabshiil Group waxa weeyaan ciyaartu ma koobna hadday tahay culimo, hadday tahay dad waaweyn, hadday tahay dhalinyaro, hadday tahay cid kasta waxay la garab taagan yihiin waxyaabaha ay ka faa'iidaan dalka inay dib ugu celiyaan bay la garab taagan yihiin. shirkadda Dahabshiil Group hadday shirkadi gaadho heerka Dahabshiil oo kale oo marka ay saameyn bulshada ku yeelato shirkaddu waa hanti qaran maaha shirkad yar oo private oo meel socoto waa hanti qaran. waxaan halkan uga mahadnaqayaa shirkadda Dahabshiil Group oo wax kasta oo dalka laga qabanayo wax doorka koowaad ka qabata taas oo anigu aan maqraati u ahay wax qabadka dalka. ilaahay baan ugu mahad celinaynaa inay jahay shirkad maanta dhinacii kasta ee adeegtaba runtii wax ka qabato wax ka tarta. gabagabadii mas'uuliyiintii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay madashaasi ayaa halkaas ugu qaybiyay dhammaan agabkii kala duwanaa ee shirkadda Dahabshiil Group ay ugu tala gashay tartanka koobka gobolada. Cabdiqaadir Cuday, Home Cable TV, Hargeysa.